بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. dowladnimada waxaa saldhig u ah heshiiska ay bulshadu la gasho madaxda ay u dooratay inay u shaqeyso. haddii se ay fulin waayaan mas'uuliyadda loo doortay ma jirto sabab ay ugu hoggaamsamaan oo waxaa meesha ka baxaya heshiiskii bulshadu la gashay waxa la yiraahdo social contract ama islaamku u yaqaano bay'ada madaxda la galo. waxaan doonayaa in aan maanta ka hadlo ballanqaadyadii baaqday ee madaxweynaha iyo hadallada beenoobay ee muuse iyo xukuumaddiisu bulshada la hor yimaadeen. waxaanu leenahay beentu waa xaaraan ee maa ilaah laga yaabo, bulshadu indhahay kala haysaa maa laga xishoodo. wixii loo ballan qaaday waa cahdi lala galay maa loo fuliyo. waa hubaal oo way idin gubaysaa xaqiiqadani, balse haddii aan mas-uuliyaddiinnii ka gaabiseen annagu waxaanu u taagannahay inaanu gudanno xilkana saaran oo bulshada u soo bandhigno dayaca aad samayseen iyo gaboodfalka aad geysateen. muusow yay ku dhibin xaqiiqadu, xisaab adduunyo iyo mid aakhiro way dambaysaa. waana kuwan ballanqaadyadii baaqday ee bulshadu kaa sugaysa. xorriyaadka asaasiga ah sida aynu ognahay waa muhiim. xuquuqda bini aadamku leeyahay iyo xorriyaadka asaasiga waa muhiim. isagoo madaxweynuhu 7 bisha juun 2020 ka hadlaya idaacadda VO-da oo waraysi u siiyey waxaa laga weydiiyey wax xorriyaadka iyo xuquuqul insaanka halkay marayaan Soomaaliland. waxaanu sheegay inaan qofna sharci darro lagu xidhin, qof walbana wakhtigii sharcigu ahaa lagu horgeeyo maxkamadda. bal hadda u fiirso. hase yeeshee warbixintii 2021 soo baxday ee ay soo saareen hay-adaha xuquuqul insaanka waxaa ku cad in xukuumaddu xidhay 114 qof oo isugu jira siyaasiyiin sarsare, hal abuur, wariyayaal iyo dad shacab ah. dhammaantood waxaa loo xidhay aragtidooda oo ay gudbiyeen ama warar xaqiiqo ah oo ay soo tabiyeen. intooda badanna lama horgeyn sharciga wakhtigii ku munaasibka ahaa. waxaa intaas sii dheer in taariikhda markii ugu horreysay ay Soomaaliland ka bilaabantay qafaalasho iyo afduub sharci darro ah. laba dhacdo oo ugu dambeeyay maxaa u dambeeyay kala sii shido. labadii dhacday u dambeeyay waxay ka dhaceen hudheelka Asood oo inan wariyaa lagu qabtay oo si sharci darro ah qoryo loola soo baxay oo lagu kaxaystay oo lagu hadiday oo hudheelku lagu fowdeeyay. shalay khamiistii aan iraahdo waxa iyaduna taa mid lamid ka dhacday hudheelka Mansuur oo wiil Cadnaan la yiraahdo oo xisbiga wadani ka tirsan ama taageero ah lagu qafaashay oo lagu kaxaystay. labadaba si isku mid ah maaha cidda kaxaysatay ciidanka booliska. waxaan ognahay ciidanka sharciga u haysta inay wax qabtaan ama leh power of arrest wax xidhi kara waa ciidanka booliska. ciidamada kale mid waliba shaqo kala loo xil saara. nin waliba ma soo qaban karo wuxuu doonana ma samayn karo haddaanay ciidamada boolisku gacan uga baahan. ciidamadii loogu talagalay ammaanka inay sugaan waa ciidamada booliska. laakiin se dad shicib oo dharcad ah oo aanay caddayn warkoodu oo mararka qaarkood sheegtay sirdoon, mararka qaarkoodna la yiraahdo inaan madaxweynuhu dhalay bay ka amar qaataan sida wararka saxaafaddu tabiso inay suuqa dadka ku qabqabtaan waa ayaan darro. waxaanu leenahay waa sharci darro. dastuurkii ka soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa xuquuqda dadka in lagu xadgudbo. waana waxa ballan qaadeen marka laga yimaado waxa sharciga ku qoran. bal hadda afkiina iyo dhigiinu hays baqlaano madaxweyne muuse waxaan leeyahay waxa aad fagaaraa la timi iyo waxa dhacaya bal hadda
labada tan sidaad isu waafajinayso bal bulshada u caddee markan imaado dhaqaalaha xisbiga kulmiye markii uu ololaha ku jiray waxa uu ballan qaaday inuu la dagaalami doono saboolnimada gaar ahaan inuu kor u qaadi doono dakhliga danyarta haddaba 4 sano iyo dheeraad kadib waxaynu la soconnaa heerka ay marayso saboolnimadu waxaynu la soconnaa in maciishadii cirka isku sareertay waxaynu la soconnaa inay waxaynu ka dheregsannahay kor u kaca qiimaha shidaalka cuntada iyo dhammaan badeecadaha kala duwan ee dalka oo dhammaan kor u kac uu ku yimi bulshada danyarta ah ee cashuurta laga qaado ilaa iyo hadda xukuumadda kulmiye ma soo bandhigin barnaamij kor loogu qaadayo dakhligooda haddaba xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxaynu leenahay la dagaalankii saboolnimada ee ololaha ku gasheen ma waxa uu isu bedelay kobcinta iyo kordhinta saboolnimada markan imaado maamul wanaagga xisbiga kulmiye markii uu soo bandhigayey qorshihii maamul wanaagga oo ahaa tiirka 6aad ee barnaamijkii ololaha ay ku galeen waxa uu sheegay inuu ka hortegi doono dib u dhac kasta oo doorasho sifo kasta ha ku yimaadee haddaba 4 sano kadib ballantaasi way la xumaatay xisbigii kulmiye xukuumaddiisii muuse waxa ka muuqata inuu ayaamaha kan u ololeynayo oo u durbaantumayo in loo kordhiyo oo kursiga ku sii fadhiyo sifo aan ahayn doorasho inuu ku yimaado waxaanu leenahay kuu suurtoobi mayso waxaan kaloo leenahay ballanqaadkii qoraa ee aad bulshada u soo bandhigteen rag baa la idinka dhigaya habeeninina 13 December 2017 waa maalintii uu muuse la wareegay xafiiska madaxweynaha ee uu bedelay madaxweynihii hore Axmed Siilaayi khudbadiisii ugu horeysay waxa uu shacbiga Soomaaliland u ballan qaaday in dhammaan mas'uuliyiinta iyo wasiirada xukuumaddiisa uu la xisaabtami doono si daafuran waay haddaba ilaa hadda miyaa maqasheen wasiir loola xisaabtamay si daafuran oo laynoo soo bandhigay khaladka uu sameeyey lagu eriyayo musuqmaasuqu galay ama dhibaatada lagu eriyayo in la eriyo ama la bedelo oo weliba ay arrimo siyaasadeed ku lug leh marar badan lagu sheego waaye aan ka imaado jidadka aanu imaado musabbixi waxa uu ballan qaaday inuu dhismaha bridge-ka 3aad ee Burco kaga qayb qaadanaya $1 milyan balse madaxweynuhu ballanqaadkaas ma fulin oo waa uu beenoobay waana sababta bridge-kii 3aad ee Burco uu qabiyoobay ilaa hadda qabyada uu yahay ee weliba warwar aynu uga qabno in intii taagneed dib soo gaadho xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhisayo wada isku xidha wadaamago ilaa iyo qorlugud iyo balidhiig haddaba reer togdheero miyaa haysaan wadada jawaabtu waa maya waa ballanqaad kaloo fashilmay xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhisi doono wadada isku xidha Burco ilaa Warcibraan 4 sano iyo siyaado miyaa haysaan wadada iyaduna waa hal bacaad lagu lisay xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu xooga saari doono wadada isku xidha Burco ilaa Oodweyne haddaba ilaa Oodweyne ilaa Hargeysa waliba ay ku dareen haddaba walaalayaal miyaa aragteen wadada maya weeye jawaabtu xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dhammaystiri doono jidadka Hargeysa Balugubadle Hargeysa Salaxley Burco Ceere Gaabo iyo wadada Dawga Cad oo dhammaantood soconayay markii uu talada la wareegay waxba lagama qaban dhammaantood marka laga reebo wadada Ceere Gaabo oo iyaduna wali qabiya xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu wadooyin cusub oo ka dhisi doono Boorame Lawyacado Berbera Raariq Buul
laascaanood ilaa adhacadaya ilaa xudun dhammaan wadooyinkaa ma hirgelin waana ballanqaad kale oo aan meesha laba soo qaadinba wax talaabana laga qaadin 7 bishii June 2020 madaxweyne muuse oo waraysi siinaya VO-da waxa uu sheegay inay dhisayaan wado laami ah oo isku xidhi doonto Somaliland iyo Djibouti hadda intii Somaliland uu ka gudbay odagu wixii Djibouti iyo Somaliland waan isku xidhi doonaa taasoo soo dhexmari doonta Boorame maanta oo laga joogo 4 sano iyo siyaado miyaa wadada aragteen ama wax hadal haya maqashee waa maya waxa ugu daran intii dalkeena aynu joognay waa naruurabe markii dalkaba laga bixilay Ethiopia Djibouti waa la inagu xidhaya waaye garoomada diyaaradaha xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaado buugiisa ku qoran oo muusana uu fagaare ka sheegay xilligii uu musharax ahaa inay dhisayaan garoonka diyaaradaha ee Burco 4 sano iyo 3 bilood miyaa haysaan isna lama hayo xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu casriyeyn ku samayn doono garoonka diyaaradaha Hargeysa gaar ahaan uu ka dhisi doono terminaal cusub miyaa aragteen terminaal cusub oo lagu daray wax lagu kordhiyay iska daayo waxa ku hoos u dhac ku yimi adeegii garoonka caalamiga ee Hargeysa oo duulimaadyadii iyo adeegiiba hoos u dhac weyn ku yimi xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dib u dhis ku samayn doono garoomada diyaaradaha ee Boorame laascaanood iyo Cerigabo dhammaantood waxba lagama qaban sidoodii bay yihiin farsamada gacanta xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday oo buugiisa ku qoran inuu dayactir iyo casriyeyn ku samayn doono dugsiyadii hore ee jiray ee farsamada gacanta kuwa cusubna dhisi doono haddaba dugsiyadii farsamada gacanta ee magaalooyinka waaweyn 4 sano ee xukuumaddu joogtay miyaa la casriyey bal hadda mid kaliya soo yogo la casriyey bal kuwa cusub iska joogaan xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday inuu dhisi doono 3 dugsi oo farsamo gacanta ah guud ahaan dalka Somaliland haddaba 4 sano iyo 3 bilood kadib xagee ayay ku dambeeyeen dugsiyada uu ballan qaaday jawaabtu waa lama hayo bal Muuse la weydiin xisbiga kulmiye waxa uu ballan qaaday inuu dalka ka samayn doono dugsiyo bixiya waxbarashada farsamada gacanta ah ee haweenka tan waa gaar haweenka oo ku haboon haweenka 4 sano kadib iyo siyaado haweenka Somaliland miyay heleen iskuul farsamada gacanta u gaara de waa maya bal qofkii sheegaya dadka u soo bandhig wax qabadka xukuumaddu sheegatay waa badan yihiin ballanqaadyada fashilmay iyo hadallada madaxweynaha iyo xukuumaddiisu yiraahdeen ee beenoobay haddii aynu maanta oo dhan isdhaahno soo kooba ka gayoon mayno oo aniga iyo idinkuba waynu ku daalaynaa bal iminka aan idin xusuusiyo hadallada golka fuulka ah ee madaxweynaha xukuumaddiisu ay yiraahdeen 24 December 2021 maruu madaxweynuhu booqday shaybaarka hubinta tayada cuntada iyo dawooyinka waxa halkaas ka jeediyay khudbad golka fuul ah oo uu sheegay inay dalka Rwanda inaga yar yihiin dad ahaan inaga dal yar yihiin dad ahaanna inaga yar yihiin dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba haddaba waxa yaab leh bal warka hadda uu sheegay madaxweynuhu iyo xaqiiqada ka jirta dadka reer Rwanda waxa lagu sheegaa inay yihiin 13 milyan 0.26 ayaa lagu tilmaamaa wuxuu kaloo sheegay inay naga dhaqaale yar yihiin dhaqaalahooda GDP-ga waxa lagu tilmaamaa 12 bilyan ayaa lagu tilmaamaa bal haddaba madaxweyne Muuse waxaynu leenahay ixtiraam aqliga dadka oo haddii aad istiraahdo wuxuun u sheeg oo aanad wax jira u sheegin waxaad ogaataa inaad dadka la hadlaysaa dad ka aqoon badan ay leeyihiin dad wax akhriyo dad ka ogaal badan ba leeyihiin gaar ahaan dhalinyarada aqoonyahanka wax baratay aqligooda ha ku ciyaari dhamaadkii December 2021 maruu safar ku marayay gobolada galbeedka madaxweynuhu waxa uu gaarisa ka jeediyay
hadal golo ka fuula oo darjiid ahaa dadka reer Somaliland ayuu kala saaray bari iyo galbeed deegaanada bariga Somaliland waxa uu ku sifeeyay kuwa dambeeya oo qorigii ku faanaya wuxuu ku sifeeyay inay weli casru jaahili ku jiraan wal hada u fiirso halka gobolada galbeedka uu ku sifeeyay kuwa qabo oo nabad jecel ilaahay ha u siyaadiyo dhamaantood Somaliland nabadda iyo wanaaga hana ka dhiga qaar qabo oo horumarsan bal hadda hadalka u fiirso wuxuu intaas kaga muhadin wuxuu ciidamadii qaranka isagoo sheegaya u kala qaybiyay sida tan in ciidamada galbeedka ka tagay ay noqdeen kuwa ugu akhlaaqda badan ciidanka bal waa yaabe labada deegaanba miyaanu isagu madaxweyne u ahayn miyaanu se fahamsanayn ilaalinta midnimada iyo isku haynta shacabka inay tahay shaqadiisa koobaad waa saameyn ka duwan dadkii caadiga ahaa oo ciidamadiina ku kala tilmaamay inaanay waa labadii askari ee meesha wada joogay waaye mar kale madaxweynuhu isagoo ka hadlaya deegaanka Agabar waxa uu dadka reer Somaliland u kala qaybiyay qolo guuleysatay iyo qolo laga guuleystay isagoo ka hadlaya doorashadii 2017 isagoo sheegay inuu isagu yahay qolada guuleysatay odaygoodii hadda waa muusihii aynu islahayn qarankan Somaliland buu oday u wadaya bal waa yaabe ma qolo oday u yahay waxa kale oo aad maqasheen isagoo madaxweynuhu meel fagaaro ah ka leh dalkeena intaas oo tan oo macdan karbohaydrayda ayaa ku jirta iyo isagoo ku dhawaaqaya xanuuna aan wali dunida ka dhicin sida COVID-8 maynaan maqal wali madaxweynaha mid kale ka maynaan maqal sidaas darteed madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dadkaaga ixtiraam oo waxaad ku hadlaysaa ha ahaado hadal miisaaman waayo dal laguma maamulo intaad soo taagto inaad afkaaga ka tiraahdo wixii aad doonto adigoo aan u eegin xaqiiqada iyo cawaaqibta ka dhalan karta hadalka oo aan ku salayn cilmi baaris iyo aqoon ugu dambeyn November 20 November 2021 madaxweyne Muuse oo ka hadlayay furitaankii garoonka diyaaradaha ee Berbera waxa uu sheegay in xukuumaddiisu aanay aqoon sida loogu faano wax qabadka ay qabatay waxaana uu hadalkiisa ku daray in wixii ay qabteen ay ilaahay hortii u qabteen bal hada u fiirso hadalka iyo balada kan soo socda hadaba iyaba waa yaabe iyo isdiiday 3 bilood kadib waxa la bilaabay barnaamijyo lagu soo bandhigayo wax qabad weyd ah oo la sheegay in xukuumaddiisu qabatay waxaana yaab leh in lacagta barnaamijyada lagu soo diyaariyay meelaha qaar ay ka badan tahay wax qabadka la sheeganayo waxa la soo bandhigayo iyo lacagta lagu diyaariyay waxaad arkaysaa inay ka badan tahay waxaana muuqata inay waxaanay qaban doonayaan inay bulshada u sheegaan bulshadii joogtay ee aan waxba loo qaban la daala dhacaysay in la yiraahdo waxba la idin qabtay oo laga xishoon waa la soo hortaago waa caadada had iyo jeer dictatorska waa maqasheen Hitler ayaa wuxuu yiri oo dictatorska aabahooda dadka u sheeg beenta ilaa ay rumaystaan waxaan u malaynayaa in madaxweynuhu ka shidaal qaadanaya halka oo dadkan waqtigan jooga casrigan ogtihiin 2022 ee dunidu halkay mareysay ay noqotay caalam information ama caalam xogta lagu kala helo ama qol la wada joogaba inuu madaxweynuhu isleeyahay taa Hitler xigo waxa sidoo kale iyaduna ay ku tahay dhaqankeena wanaagsan iyo diinteena suuban oo labaduba caayay hadallada noocaasa ee aan laga sariigan sida quraanku tilmaamay xikmadda quraanku wuxuu inoo tilmaamay inaanay dadku sheegan waxaanay qaban iyadoo marka hore uu beenta inaga mamnuucay oo xaraan tahay waxa ku aayadu oranaysa la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw yuhibbuna an yuhmadu
بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم إلهي هينغا هي عذاب waxay se tilmaamaysaa kuwa jecel in lagu amaano waxaanay qaban sidaas oo kale macnaha bay tilmaamaysaa marka waxaan leeyahay war haddaydaan ummadda wixii ay idiin xil saartay iyo waxay idinka sugaysayba aad gabteen in aad sheegataan waxaydaan qaban oo aad bulshada la hor timaadaan waa guul darro weyn waxaanu leenahay bulshada ha laga xishoodo haddaydaan waxba u qabanayna waxa weeye ha kaga cayaarina waktigooda iyo dhegahooda ha kaga cayaarina waa mahadsantii